ربنا إن بنوصل رئيس الوزراء هنا سلام ترى بيدبو سين سلامة هالمر سين سلامة رئيس الوزراء مركل كعلي سين سلامة سين سلامة رئيس الوزراء بيدبو واحد هذا ما بريد عنده بريدة هالمر بريدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيبو وأبوان حرقو يوتيوب كداوانيسان وأبوان حرقو اوفيشال waxaan kalo habeen dambe soo wada hadii ilaahay yiraahdo ilhaan cumar waa la furay kuwa ku haya boqbilow bahir cali sawi shiina culay abdulqaadir boosi waxa ka gala hadii la furay aan la furay wada ku haye waa habeen dambe subscribe ka yaa lagaaga hormari habeen dambe ragaas aan rabaa kabaha inaan waxa weey la dul maro notification ka markuu ku soo dhaco subscribe ka saar laandheere dhalayba la hadlayo liiraa waa xarago waxaan idinka soo salaamayaa wadan qurba boolada saacuna waa ka tagnay cunadii xalaas ahayd waxa cunna la yiraahdo ii sheeg naashay guray bataaya dhamaan waa idin salaamaya ra'iisul wasaare guuleyso hore u soco haddii aad ila joogtay like iyo comment haddaadan ila joogina subscribe waa muhiim subscribe kaagu waxaan maanta ka hadlaynaa ra'iisul wasaare xasan cali khayre waxaan ka hadlaynaa ra'iisul wasaare xasan cali khayre baydhabo markuu tagay odagu nuqadu rabo ku hadlaa numbarku rabo garaaca farxaniyood weeyaan uga taageersanahay okay waa ku mahadsantiin soo dhaweynta sharafta leh waxaan ku bilaabayaa waan salaan diiran idinkaga sidaa madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo gudoomiye salaantiisa okay reer baydhabo jannaay سين سلامة رئيس الوزراء مركل كعلي سين سلامة سين سلامة نبدا رئيس الوزراء واحد هذا مهرجسن ما بيدبو هرجلا الله مرضى قطر هرجلا رئيس الوزراء بيدبو واحد هذا ما بريد عنده بريدة هالمر بريدة مركل النبي علي بريدة هالمر بس الدحاد بريدة رئيس الوزراء واحد هذا مهرجسن ما بيدبو هرجلا الله مرضى قطر هرجلا مركل النبي علي هرجلا هالمر بس الدحاد هرجلا ايد يا انكي معتنتين اوكي سيدة الصورة لي حينا وينتين reer baydhabo jamaay siin hilaawi isin ii hilowteena reer koonfur galbeed soomaaliya isin quudiya jirteen quudiyowkii yaa laysinka fadhiyaydaan maanta reer koonfur galbeed inay iswaraysanayaa inkooy reedna sogaal soor wansuuse ee aamufade gurigii barwaaqada ay baydhabo ma nabadba baradii masakaday baydhabo ma nabadba faculty of
adigoon garanayn gabyaan noqo waxaa ka baxay ra'iisul wasaaraha qaranka xasan cali khayre wuxuu ka baxay faculty of adigoon garanayn gabyaan noqo indha cadays gabay baa lagu haystaa ra'iisul wasaaraha gabay indha cadaysaa lagu haystaa بريان كلام مغنينا بيدموي من نبضبا إيش بيها كوليو برديه كوعاناي بيدموي من نبضبا gabadhii aasaasaye reer cabud waaqow waa salaamantihiin uu gabayga ka bilaabay ra'iisul wasaaruhu bulshada nabadda jecelaay baydhabo ma nabadba gabay indha cadaysaa lagu haystaa tuuladu tagaba wuxuu leeyahay gabyaabana marka jaamacadda indha cadays maanta shahaaday ku guddoonsiinaysaa isagoo ka qalin jabiyey alla ilahe adigoon garanayn gabyaan noqo jaamacaddu in badan bay ka warwareegtay ra'iisul wasaaraha laakiin ra'iisul wasaaruhu isagoo geed ugu soo gaban ayuu jaamacadda soo weeraray isagoo bililiqaystay dhammaan suugaantii taallay jaamacadda iyo buugaagtii bal hadda markii uu gabayada tirinayey uu bakhaarada jabsaday jaamacadda bal hadda waa kanay leeg عرفك ما يجيني من عبد الله وين نبضبا magaaladii ilaahay lagu caabudaayay xaafidada aqleyma nabadba warbal qoodha iyo xerada gabayga ay sida loogu tumanayo waxaan u mahad celinayaa madaxweyne cabdicasiis lafta garan oo sida dowladnimada loo bilaabay in halkan laga oogo markii uu madaxweynaha noqday kadib waxaa halkan ka muuqata sida dowladnimada looga ogaayo koonfur galbeed gaar ahaan baydhabo waxaa ka muuqata sida la isugu soo dhaweynayo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan madaxweynaha iyo guddoomiyuhuna waa ku mahadsan yihiin sida sharafta leh uga shaqeeyeen horumarka dalka iyo dowladnimada waxaa aasaas u ah wada shaqayn koonfur galbeedna waxay weligeed ahayd buddhigaha wada shaqaynta dadka iyo dowladda soomaaliyeed waa idinkaga mahad celinayaa waa mahadsantiin laadheere dhalay baa tahay annagu waa ku ognahay mideeda kale anigu waa ku koobiyeyn jiray ra'iisul wasaare abwaan xarraga ahaan waxaan dhihi jiray anigoo ku hadlaayo keyga iyo kan madaxweyne waxaan idiin sheegayaa inaan galnay wakhtiga aan ku jirno wakhti ka badna anigoo ku hadlaaya keyga iyo kan madaxweynaha waxaan ummadda soomaaliyeed u sheegayaa inay noo dhammaatay 2 sano oo aan gaarnay ajandihii aan dalkan ka lahay waxaan gaarnay guulo ka duwan guulihii ay gaareen dowladihii annaga naga horreeyey waxaan dhallinyaradii ku soo celinnay dalkooda ayagoo ku dhibaataysnaa dalalka kale waxaan duulimaadkii dalka oo horay looga maamuli jiray nairobi maanta laga maamulaayo garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaan ciidamada soomaaliyeed siinaa mushaarkooda xilligii la siin jiray xilli ka hor waxaana u samaynay isdiiwaangelin lagu hubinaayo in askari u qaatay xuquuqdii ay dowladda ugu tala gashay waxaan aragnay saraakiil 2 kaar ku kala qaadanaya xuquuqda askariga ay mas-uulka ka yihiin waana midda nagu kalliftay inaan samayno diiwaangelin rasmi ah oo lagu xaqiijinaayo inuu askariga qaatay xuquuqda dowladdiisa waxaa jira siyaasiyiin dana gooniya dalkan kale oo aan rabin inay soomaaliyadii la yaqaanay ay noqoto inaan tallaab hore u qaadno iyo in beesha caalamka aan wax la wadan kuwaasoo nooga daran cadow kasta oo nagu soo duun maadaama ay ayagu xasaanaddii noo hayaan dalkiina ay cagaa hayaan kuwaasoo baraha bulshada maalin waliba ka aflagaadaynaya dowladda nabad iyo nolol oo la aasaasay 8 Febraayo 2017 waxaan amrayaa saraakiisha dowladda milatariga nabad sugidda iyo booliska inaanan indhaha ka dadan doonin ay wax ka qabtaan
hadduu raba xasaanad ha wata ama yuusan wadan waa in la geeyaa goobaha cadaaladda shakhsi xasaanad watana uu ka muuqda maxkamadaha dalka waxaanoo saraakiila ay u joogaan haddii dalkii af lagu duminayo waxaanoo jenaraalaha ay u joogaan haddii dalkii uu siyaasiyiin ka dhaqaaqi laaya waa in wax laga beddelaa dalkan 27 sano kadib waa markii ugu horraysay dawlad Soomaaliyeed oo aan wax loo meerin ay ka dhalata dalkan 27 sano kadib waa markii ugu horraysay dawladdeenu laga aqoonsada caalamka xilli kuwii hore lagu bahdili jiray ayraboorada kale ee dalalka shisheeye waxaan ummadda Soomaaliyeed u caddaynayaa anigoo ku hadlaaya keega iyo kan madaxweynaha inaan maanta nala aqoonsaday una baahannahay horumarka dalkeenna inaan si wada jira wax uga qaban waxaana amrayaa saraakiisha dawladda taliyaha nabad sugidda booliska iyo milatariga inay gacan bira ku qabtaan shakhsiyaadka lagu soo eedeeyo inay yihiin qaran dumis oo ay koow ka yihiin xildhibaanada wasiirada iyo aniga oo ra'iisul wasaaraha ciddii lagu qabtaa qaran dumisnimo waa inay ka muuqdaan goobaha lagu maxkamadeeyo dalka waa in amarkaygu uu dhaqan gala waa in ciday mas-uuliyadda dalkani waa inay cidi qaadataa waa in dad loo maxkamadeeya xasaanad wata waa in amarkaygii uu dhaqan galaa waa maasantiin anigu taageera iga tahay igama ahan ra'iisul wasaare xumaata igama ahan ra'iisul wasaare igama ahan waxa weeye mucaarad igama ahan in laygu darana ma rabo liiska cabdiraxmaan cabdishakuur liiskaygu waa liis nabadeed waan ku taageeraa notificationka markuu kuu soo dhaco hore subscribe ka saar laandheere dhalay baa la hadlayo la yidhaha Abwaan Xarago waxaan idinka soo salaamayaa waddan qurba booladaasa cunnaa waa ka tagnay cunnadii xalaasha ahayd waxaa cunno la yidhaahdo ii sheeg naasee gurey bataaya dhammaan waa idin salaamaya ra'iisul wasaare guulayso hore u soco